بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن داودياشا qiimaha iyo qadarinta mudan lahow meel walba joogtaan waa mar kale barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha oo idinkaga imanaya stuudiyaha iyaga magaalada Toronto ee telefishinka qaranka Soomaaliya waxaana barnaamijka faaqidaada ciyaaraha halkan idinkaga soo gudbinaya anigoo ah Muxudiin Jaamac barnaamijkeena toddobaadkan faaqidaada ciyaaraha daawadayaal waxa aynu falanqeyn guud aynu ku sameyn doonaa tartankii ciyaaraha xiriirka kubadda kolayga qaaradda Afrika zoonka shanaad ee lagu qabtay dalka Uganda magaalada Kampala ciyaarahaasi oo ay dhaceen September 22keedii ayna dhamaadeen 28kii September xulka qaranka kubadda kolayga Soomaaliya ayaa ciyaarahaasi ka qayb galay oo runtii wafdi aad u ballaaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda kolayga Maxamed Nuur Cabdullaahi Cadaani iyo xogayaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda kolayga Saciid Faarax haddaba ciyaarahaasi siday u dhaceen natiijadoodii waxaan filayaa in barnaamijyadii hore aad ku soo dhammaan ku daawateen natiijadana aad ka dhagsantihiin waxa inoo suurta gashay oo runtii in stuudiyaha halkan magaalada Toronto lagu yimaado Cabdi Maxamed Ciya Cabdi Dheere oo ka tirsan xubin kamid ah xiriirka Soomaaliyeed kubadda kolayga isla markaana ah macallin ku weyn bahda isboortiga Cabdi waxa uu kamid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya waxa uu magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka uu u tagay dhowr mar sida ay u socdaan ciyaartoyda loo diyaarinayo xulka qaranka Soomaaliya asagoo si weyn kala talinayay xagga farsamada marka hore Cabdi Dheere ku soo dhawow barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha ee stuudiyaha TV qaranka Soomaaliyeed Muxudiin Jaamac aad baa mahadsantahay aad baa mahadsantahay barnaamijka aad maanta igu soo martigelisay wata Cabdi waxaan rabnaa tartankii ciyaaraha FIBA Africa zoonka shanaad ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda inaan xagga farsamada adiga aan wax badan ka weydiino marka ugu horeysa diyaarintii ciyaartoyda ciyaarahani waxay ahayd inay dhacaan bisha June bartamaheedii waxba isbedelay dib ay u dhaceen marka bal waxaad noo soo koobtaa ciyaarahani sida xulka qaranka Soomaaliya marka hore aad idinku ugu diyaar garowdeen Muxudiin aad baa mahadsantahay mar labaad ciyaarahaasi waxay ahaayeen in ay dhacaan si hore u sheegtayba bishii June 15keeda ama 13keeda inta u dhaxaysay ilaa iyo 22ka bishii June hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay ilaa iyo September sidaad u aragtay 13keedii in laga furo wadankaasi Uganda Kampala sidaad hore u sheegtay ciyaartoyda bishii December waxaan xasuustaa 2013kii waxaanu ka ambabaxnay magaalada Toronto waxaanu aadnay Minneapolis ariga Mareykanka oo si at least oo aynu North America ahaan aynu isugu wada imaano magaalada Minneapolis iyadoo halkaas ay joogaan gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed Gene Xasan Nuur Axmed Dahir Axmed Aflow iyo nin la Jury oo ay dhalinyarada wax ka taakuleeya oo ururinta iyo dhinaca supportive as a community ahaan oo iyagu nala ururiya ciyaartoyda kubadda kolayga Soomaaliyeed gaar ahaan wixii ku nool North America tababarkii waxaa ka soo qayb gashay ilaa iyo 22 ciyaartoy oo kala timi Toronto iyo Mareykanka 22kaas ciyaartoy kuwii hore uga soo ciyaaray national teamkii 2013kii oo ku jiray qaar kamid ah iyo kuwii cusbaa oo aan u bandhignay jaamacadaha Mareykanka qolooyinka hadda ka ciyaar iyagu oo aan isleenahay way ka qayb qaadanayaan way u hanweynayaan inay wadankooda iyo calankoodaba ay mathalaan marka muddo ilaa iyo 2 usbuuc waxaanu joognay Minneapolis oo aanu tababarkaasi qorshaha dheer oo diyaar garowga ah aanu ku haynay dhalinyarada oo waliba ay tashiilaad fiican inoo sameeyeen Gene Xasan Nuur oo gudoomiye ku-xigeenka ahaa oo nasiisay hal guri oo dhan oo ciyaartoyda lagu xareeyay waa tahay Cabdi aad u mahadsantahay sida aad noogu bandhigtay laakiin ciyaarahani Cabdi oo markii ay baaqdeen marka hore idinka ciyaartoydii aad ugu tala gasheen aad hesheen mas'uuliyiin ciyaartoydii aad u baahnadeen dhan walba markay noqoto basketballka inaad gacanta ku hayseen markii hore diyaar garowgii hore arrin aad ugu faraxsan ay ahayd waliba shacbiga reer Minneapolis runtii qayb weyn bay ka qaateen oo yani dhinaca miidiyaha ama dhinaca taakuleynta ciyaartoydaasi oo maadaama ay ku sugnaayeen magaalada Minneapolis waan u hanweyneen sababtoo ah ciyaartoy waxa ku jirta oo cusub oo ilaa iyo 6-11 ah qaar 7 foot xataa ahaa kuwa xag dhinaca qaybinta dhinaca baalasha iyo way isu dheelitirnaayeen iyo waliba kuwa dhaadheer dhexda oo runtii aan aad ugu hanweynaa dhalinyaradaasi oo faraha badneed sida hadda midalaan ku siiyay Cabdullaahi Big Z waa nin 7 foot ah oo runtii aad u dheer oo runtii aan aad ugu hanweynaa in ciyaaraha ku soo qayb galo iyo
Abdul asna wuxuu ahaa sidii almost 7 foot asagana 6'11 6'12 oo kale 7 foot waan runtii asna ciyaartooy oo dhexda runtii aad u ciyaar marka ciyaartooydaasi ilaa iyo 8 oo kale marka lagu daro 5 ama 6 kuwii hore waxay ahayd 12 ciyaartooy oo isu dheelitiran oo dhameystiran oo diyaar u ah inay calankooda midalaan bishaasi June 15keeda oo aan ugu talagalnay qondo ahaan in ay ka qayb galaan ciyaarahaas lagu qaban doono Uganda cabdi ciyaarahaas markay baaqdeen waxaa jirtay in ciyaartooydii ka qayb gashay try out-ka amaba runtii diyaar garowgaasi amaba xulkii qaranka Soomaaliya qayb kamid ah in ayaguna ay diyaar noqdeen oo aad xulka qaranka Soomaaliya u safteen markii Kampala la tagay cabdi waxaa halkaasi ahayd inay yimaadaan 12 wadan waxaa kaliya oo yimid 5 wadan markay ciyaaruhu ka dhiman yihiin 2 maalmood waxaa ka baxay tournamentiga dalka Burundi oo ka cudur daartay ciyaarihina inay noqdeen is arag oo wadan walba uu ciyaaro 4 ciyaar marka adigu maadaama aad kamid ahayd macallimiintii runtii xubinna aad ka tahay xiriirka Soomaalida kubadda kolayga ma ku qanacsanaydeen ciyaartooydaasi xulka qaranka Soomaaliya markaasi buuxiyay booskii xulka qaranka Soomaaliya runtii muxudiin horta waxa aan runtii aad ugu faraxsanahay wadamada Burundi iyo Rwanda sidoo kale ay laftirkooda waxay soo mareen xilli runtii aad u qalafsan oo dagaalo sokeeyay iyo dhibaatooyin fara badan ay ka dhaceen haddana waxaad arkaysaa weli iyagoo soo taagan oo dhinaca horumarinta dhalinyarada iyo isboortigaba runtii kaalin aad muuqata kaga jira iyo Soomaaliya weliba iyaga aan isleeyahay ka qaybgalkeedu wuxuu ahaa waa muhiim waayo kan ma ahan 2013 maana kii si horeeyay waa ka baaqane cilado fara badan awgood kii oo ahaa 2013 waa ka qaybgalne kanna haddana waa ka qaybgalne ayadana waxay noo ahayd yani arrin muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed waayo yani fagaaraha isboortiga adduunka la iska arko gaar ahaan waxa laga yaabaa in kubadda cagtu East African ay dhowr jeer ay tageen laakiin Soomaaliya wadamada Carabta iyo Afrikaba inaan weli kubadda kolayga muddo dhowr iyo 20 sano kadib inaanu hadda aynu soo bilownay oo aan weliba aan dardar cusub iyo yani Afrika inay weydiiso sidee heerkan aad ku gaarteen ama ciyaartooydan oo yani saan qiimaha u leh xagad keenteen oo dhinaca farsamada iyo aqoontooda yani heersan ay tahay isweydiin yani oo aad mucjiso ku abuurtay qolooyinka Afrikaanka si degdeg ah waxaan xusuustaa sidii kuwan hore aan u sheegay muxudiino ee Angola ay noqotay yani ciyaaraha Olympics adduunka in Afrika matasho ay ka soo qayb gasho asaa ogna Angola waa wadan asal sidoo kale dagaalo sokeeyay iyo marxalad runtii aad u qalafsan soo maray hase yeeshee ciyaartooydoodii hore ee cuslaatay ee wadankaas u dhashay oo dibadaha joogay oo wadankooda ku laabtay gacan weyn ka geystay sidii loo barbaaran lahaa loo tarbiyan lahaa dhalinyarada faraha badan ee wadankooda ku nool ayay noqotay inay natiijo weyn ay ka dhaliyaan ee heerkan ay soo gaarsiiyaan marka anigu waxaan oran karaa Soomaaliya inay ka qayb gasho ciyaaraha kan waxay noo ahayd yani arrin runtii aad loogu farxo Afrika iyo calankeenagaba yani fagaarooyinka adduunka isku arko ku soo celisay isla markaasna tartan aanu la galno sida wadamada Masar oo kale oo yani 100 sano soo jireen ah oo ciyaaro badan ku soo jirtay iyo wadamada amaankooda runtii aad u fiicnaa oo soo jireen ah iyaga sida Kenya oo kale laakiin waxaan runtii aad ugu xumahay kuwa 12 ah oo meeshan yani diiwaan garaysan xataa waxaan rabaa in amaan gaar u jeediyo wadanka Uganda kubadda cagta ay runtii aad xoog u saartay weli aleed laakiin markii ugu horeysay oo Uganda heerkan ay soo gaartay zone 5 oo madal ay ka sar martay waayo waxay gelisay waqti iyo dhaqaale iyo diyaar garow runtii aad u fiican iyo weliba ayagoo ciyaartooy dhowr xabba ka keensaday dibadaha weliba wiil ciyaartooy kamid ah qolooyinka Sweden ka ciyaarayay markuu imaaday ciyaaraha Uganda uu u sheegay Maxamed Geedson Tour iyo qolooyinka kale ee maamulka hayay oo zone 5 wax ka wada wiil baa jira oo Soomaaliyeed oo ka ciyaara Sweden oo runtii aad u fiican oo kooxaha anaga aanu ciyaarno yani starterka noo ah oo Soomaaliyeed maxaa loo keenay waa wiil marka waxyaabaha aan rabo inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed meel kasta dacalada adduunka ay joogto in ka qaybgalka ciyaarahaasi ay ka qaybgalaan isla markaasna mudnaan kuwaad la siiyo ciyaaryahanka Soomaaliyeed oo raba inuu calankiisa yani wadankiisa inuu masalo in gacan lagu siiyo waa tahay cabdi aad baad u mahadsantahay cabdi runtii sidaan ka warqabno dalka Soomaaliya
25 sano ugu dambeeyay sportiga meesha uu marayay iyo dhammaan dhinacyada kale haday noqon lahayd nolosha caadiga ah wax badan baa runtii laga soo kabsanayay marka sportigu intaa waa taagnaa dad baa waday Soomaaliya maantay ma waxaan ahayd inaan ku xisaabtanno ciyaaro aan ka qayb galno inaan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad galno iyadoo aad ogtahay duruufta ciyaartoyda Soomaaliyeed dalka iyo dibadda ku nool wadamada ka qayb galay tartankan ciyaaraha FIBA Africa Zone 5ka markii qaar kamid ah oo halkaas aan kula kulmay aan wax weydiiyay waxay noo sheegeen ilaa iyo inay xareysnaayeen ilaa 4 bilood oo ay meel wada joogeen ay tababar qaadanayeen ay wada seexanayeen ay intaas diyaar garow ugu jireen ayna daawanayeen wadamada ay la ciyaarayaan ciyaarihii hore u galeen marka waxyaabaha hadda noogu weyn Soomaaliya markaan tartan ka qayb galno haday noqoto kubadda koleyga maxay tahay kaalintayada inaan badino iyadoo ay muhiim tahay haddana in kulamada calanka Soomaaliyeed iyo koox Soomaaliyeed inay joogto iyada mudnaanta kuwad ma leedahay wasiirada hore aan kugu sheegay Muxdiino horta way fiican tahay waxa lagu magacaabo criticismka ama yani in oo la dhaleeceeyo hadii wax ay dhacaan way fiican tahay oo yani qofka maamulka markaas gacanta ku hayo wuxuu noqonaysaa meesha adig aad joogtay maahan macnaha inaad faraska aad si yani aad usha ku dhufataa oo aad horumar iyo aad gaartaa insha Allah taala sidii loo horumar lahaa barnaamijka marka aad gacan inaad si xoojiso oo improvement inaad samaysid ayaa horta muhiim ay tahay in wax la dhaleecinayo in yani ay noqoto sidee wax loo sii wanaajiyaa oo horumar ballaaran loo sii gaarsiiyaa I hope in yani fikradda gaarka ahneed in saas ku biisgeysanaynta Soomaaliya saa ogtahay laba marxalad ay soo martay haddana waxaan ku jirnaa marxaladda saddexaad ayaan ku jirnaa I hope in ummadda dadka inay fahmaan 1960 ilaa 69kii Soomaaliya waxay ahayd yani dawlad xor ah wuxuu ahaa wadan dimuqraadi ah oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo la doorto laakiin dhinaca horumarinta sportiga Soomaaliya markaas runtii aad ay u liidatay oo yani marka loo fiiriyo kacaankii Soomaaliya ay barakeysnaa 1969kii 70gii ilaa iyo 90gii waxaad garan kartaa abaabulka iyo kicinta iyo dhismooyinkii garoomadii kubadaha cagta kubadda koleyga yani orientationadii scholasticadii goboladii yani maxaa ka soo ifbaxay waxaa ka soo ifbaxay iyo dhismihii wasaaradda sportiga oo 1970 oo lagu dhisay wasaaradda sportiga iyo wasiiro fara badan oo soo maray oo ah runtii dhinaca baraarujinta iyo wax qabadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee markaas kacaanka la koosatay si anaga oo kamid ahaynba dadkii ku soo barbaaray yani marxaladaasi waan ogeyn ila Afrika iyo Carabaha meesha aan ku gaarnay yani kaalintii aanu kaga jirnay yani sportiga Soomaaliyeed haddii noqon lahayd ciyaartooy heer qaran ciyaartooy heerka koowaad ciyaartooyda gobolada yani mushahar ku qaadan jireen waxay ahaayeen shaqaale wasaaradaha ay ka tirsan yihiin iyo wakaaladooda ay ka tirsanaayeen marka wasaaradda sportiga waxa hoos imaan jiray markaas ilaa iyo intaasoo macallimiin ah oo tababarada loo furi jiray oo Mareykanka inoogu wada imaan jireen iyo anaga xataa aniga iyo Axmed oo ahayn labada qofood ugu horeysay oo Mareykanka u aaday tababar muddo 2 bilood ah oo horumarinta kubadda koleyga coaching clinic oo soo qaadanay iyo kii ugu dambeeyay aniga iyo dhalinyaro kale Maxamed Faarax Aadan Qabbi iyo waxa kale oo kamid ah Idris Bruno waxa qof kale kamid ilaa adiga waxaan aynay 6 qofood oo aan xusuusanin oo aan imaanay traininga oo ahaa World Basketball Association ayaga training marka dhismihii iyo kobcintii iyo dhaqaalihii iyo barnaamijka aan soo maray iyo wadanka aan lahayn oo lacagta iyo adduunka lagu bixin jiray waa dhamaatay hadda waxaan soo galnay 20 kala sano oo burbur ah marka tii ugu horeysay waxay iska ahayd saas ma ahayn sportiga tii kacaanka waa soo dhisay waxaa ka dambeysay 25 kale waxaa ka dambeysay oo haddana oo ah burburkii oo Soomaaliya hadda mar labaad labada sano ugu dambeysay mar labaad waxaad moodaa in oo aynu wadanka uu markaan soo kobciyo uu soo roonaanayo oo yani ummadii iyo midnimadii iyo qarannimadii iyo yani duruufiyaad kala soo mar waxa moodaa in laga soo baxayo oo hadda marka marxaladda noo taala waxay tahay guddiga Olympiga Soomaaliyeed iyo wasaaradda sportiga oo ayagan laba dhinac kala jooga oo loo baahan yahay bar sidii waagi hore waa isku wada jireen haddana waa ay kala joogaan laba dhinac ay kala joogaan marka sidii oo ahaa yani mowqifka ah kale barnaamijkaas kala taagan wajahaynta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo midnimadooda iyo qarannimadooda iyo sidii barnaamijka dib loogu soo celin lahaa
orientationadii iyo scholasticadii iyo goboladii sidii loo asaasi lahaa falankeeda o dhan waa runtii shaqo aad iyo aad u weyn oo noo taallo waaye haddaan hoos laga soo bilaabin oo aan la soo dhisin oo aan la soo kobcinin yani qaran ahaan waxba laga bilaabi karo ilaa in la helo ma ogiye yani grassrootska in hoos laga soo bilaabo oo lasoo dhis waxaan xasuustaa muxudiino nin la oran jiray Tobias wuxuu ahaa tababare laakiin tababare ma ahayn oo ah hal koox tababare qaranna ma ahayn wuxuu ahaa tababaraha Soomaaliya ayuu ahaa waxaa arkaysa gaari uu watay Volkswagen-kiisa kubadaha aga buuxay waxaa arkaysa subax iyo galaba isagoo jooga iskool orientation oo golaha hanuuninta dadweynaha meel isagoo jooga garoonkii basketballka 21 isagoo arkay markas taagan oo ah yani hirgelinta kubadda koleyga meel kasta oo wadanka ah gaarsiinaya yani wacyigelinteeda iyo wax u tarka dhalinyarada Soomaaliyeed si ay qarankooda berito u mathalan marka ninkaasoo kale Herbert V Tobias iyo nin la oran jiray Matt Whitfield labada waxay ahaayeen Soomaaliya dhinaca USIS u qaabishana horumarinta sportiga ee East Africa marka qayb weyn ay soo qaateen waa gartay cabdi runtii sida aad noogu faahfaahisay haddaan usoo noqonnaa tartankii cayaaraha lagu qabtay magaalada Kampala oo xulka qaranka Soomaaliya uu ka qayb galay xaggii farsamada haddaan usoo noqono cabdi xulka qaranka Soomaaliya cayaarahaasi maadaama anigu aan ka qayb galay oo aan goobjoog ka ahaa haddaan qodob usoo qaadno meelaha Soomaaliya ay aad ugu liidatay gaar ahaan farsamo ahaan waxaa ka mid ah in cayaartooyda Soomaalida aysan isticmaalaynin waqtiga 24 second ood arkayso kubaddaasi inay dhammaanayso 6 second 7 second ayadoo la joogo marka adigu macallinna waa tahay bal arrintaasi maxaad ka leedahay horta muxudiino waa runtii dhibaatooyin mana haystaan runtii sax waa dhibaatooyin fara badan baan haysta marka duruufahaasina haysta tababarayaal fiican waa leenahay oo tababarayaasha xulka qaranka Soomaaliya sida Cumar Cabdiqaadir Maxamed Baarajab oo kale Axmed Daahir Axmed oo kale iyo yani team managers sida Axmed Muuse oo kale xogeyaha xiriirka Soomaaliya kubadda kale Saciid Faarax Ducaale yani dad waxa arkaysa oo ah yani khubaradii sportiga Soomaaliya oo wada socdo oo meesha wada tag oo jooga oo xataa yani gabadh ciyaaryahanka weyneed ee Soomaaliya Mulki Nuur Muudey xataa waa ay joogtay yani waxa moodaa in si hadda aan ku sheego soo ranaanshaha soo dhawaanshaha iyo يعني موقفك ما إن لقوا استاجو سبورتك سومالي اسميسا هرتكاز very important هو مد الله بعد وهذا كذا واجد واحد عيارتويدو runtii aniga ciyaartoydii oo aanu diyaarinay oo aanu ku talagalay in ciyaaraha ka qayb galaan oo dhinaca farsamo iyo barnaamij ahaanba waa tii araxda oo ka jabay oo ahayd in June maadaama rab ciyaar la qabto tababar Axmed Daahir oo markaasna la joogay Minneapolis anigana aan ahaa ninkii supervisor-ka ahaa oo yani kormeerihii dhinaca farsamada ka caawinayay oo barnaamijkan wax kala waday ciyaartoydii aan ku talagalnay meesha iyo diyaar garowga aniga aan u sameynaba waa tii June laga qaaday oo dib loogu dhigay la keenay September waxay noqotay marka jaamacadii iyo shaqooyinkii iyo adduunka inagu la laabtay waayo waxaan waa volunteer waaye marka ciyaaryahankana marka hadday noqotay volunteer oo ah waqtigii loogu tagay markii laga qaaday yani ayaga xataa waxay noqotay disappointed marka dhinaca farsamada waa muhiim waaye weliba waxaa ugu muhiimsan kooxda waxa lagu magacaabo teamwork si wada jir ah in loo galo weerarka iyo si wada jir ah in loo galo difaaca iyo wixii fast break iyo transitionka ah oo yani koox ahaan dhexda wada maraya fast break haddii lagu joojiyo waxbay aad samayn lahayd waqti dheer u baahan tahay kooxaha adiga ka hor imaanaysidna waa sida Masar oo kale yani iyo Rwanda oo kale waa kooxo yani ajnabi oo yani ciyaartooydooda Masar waxay ku fiican tahay dhinaca skillka farsamada oo ciyaaryahan oo yani farsamada aad u fiican tahay laakiin qolooyinkan Afrikada madow waxa laga yaabaa farsamo iyo xoog inay tahay marka haddii ciyaartooydu Soomaaliyeed waa qaana waxa laga yaabaa dhinaca farsamada inay aad ugu fiican yihiin diyaar garowda laakiin markay noqoto xoog taariikh ahaan marka fiirso waxyaabaha laga yaabaa in looga badiyo ciyaartooyda Soomaaliyeed waxay noqonaysaa dhinaca xooga iyo inay noqoto waxayna ku xiran tahay waa diyaar garow waayo sportiga waa technology wuu isbedelay sportiga maanta wuxuu ku soo ururay waa physical fitness waxaan xasuustaa muxudiino waa aan aadnay wadankaas Mozambique waxaan ku xariisanay istaadi Muqdisho waxaan xareeyay ilaa iyo 15 ciyaartooy waxaan u keenay dhowr tababaro oo dhinaca atleetikada oo dhinaca farsamada ah istaadi Muqdisho iyo kulliyadda waxbarashada la fool oo aniga aan joogay ayaa waxay facility aad u fiican dhinaca jirdhiska ah ciyaartoydii aniga aan ku xareeyay istaadi Muqdisho waxay ahaayeen ciyaartoydii inta badan 90% fitnesskooda ee ka shaqeynayeen tababarayaashaas u qaabishaan dhinaca fitnesska
waxaad moodaa markaan ay ka soo baxeen ciyaartoodii muuqaal kale ayay yeesheen yani xoogooda physicalkooda muuqaalkiisa adkeysigooda farsamadooda yani quwadooda ay ku muquulinayaan yani wax kasta oo ku dhaca waxaa moodaa sidii waxay noqdeen yani shiminta camal oo derbi camal noqdeen. Muxudiin waxaa dhacday markaan tagnay Zambia naadiga markaas hawlaha guud aan wade Zambia markaan tagnay waxaa la yidhi diyaaradii oo idin gelinayda Mozambique waa baaqatay 5 habeen dambe aan ciyaar lehna marka maanta oo kale inaan baxno oo habeen dambe aan ciyaarno waxaa la yidhi 5 qofood keliya lagu qaadi karaa 5 boos lagu haliyo marka 5tii boos oo ciyaartooy ahayd iyo 2 boos oo ah gudoomiyaha Maxamed Axmed Culu ayuu ahaa iyo anigoo tababaraha kooxda ah marka haddii aan mar kastaba marka qalbigayga ka dhamaato waa xusuustaa haddii marka dib liigu soo celina maanta la maxaa samayn lahayd waxaan ka dhigi lahaa 7 ciyaartooy inay baxdo waayo oon macallin wadanin oo aan gudoomiye xataa aan wadanin 7 ciyaartooy diyaaradda waa saar lahaa at least ayagana tababar isu noqon lahaa because heerka ay gaareen yani habka is wada ka ciyaartooy wadan oo national team ah oo khabiirina ku jirta waxaan ka wadaa marka 5tii ciyaartooy oo aan geynin Mozambique Muxudiin Jaamac Muuse waxay galeen ciyaarta 9 o'clock ayaan ciyaarta bilowna ciyaarta waxay dhamaatay 1 habeenimo kooxda Mozambique markay noogu imaato Soomaaliya waxaan kaga badinay ilaa iyo 22 dhibcood kaga badan si uu soo gudaan marka ilaa 30 si uu soo gudaan marka waxay noqotay si uu soo gudaan inay ku qaadato 9 o'clock in ciyaarta bilaabato inay dhamaato 12 barka habeenimo inay dhamaato wax kale maaha waana ku dhameen ciyaartaas waxay ku dhamaatay 1 dhibic oo inooga badisay Mozambique 1 dhibic waa 5 ciyaartooy kaliya waan bedel jirin marka igama dhamaato xusuusteeda waayo waxay ahayd garashada oo aan gartay ah in Afrika markaan rabo aan la ciyaaro inay tahay inaan u diyaar garoobo oo fitnesska especially maanta la joogo ciyaaraha adduunka dhan waxay isugu biishubteen qofka inuu ku jiro weight roomka oo ah biraha iyo conditionskiisa inay dhisan yihiin farsamadana in laga shaqeeyo oo ah waqti dheer la geliyo sidii ciyaaryahanka loo barbaaran lahaa marka wax yar ma aha laakiin waa arrin aad u dheer markaan fiirsay ciyaartoodii aan soo keenay oo waqtiga aad u yaraa ciyaartoodii aanu diyaarinay oo yani meesha ka baxday ciyaartoydii labaad oo macnaha kaalintooda soo gashay oo runtii dhalinyaro ammaan mudan wadankooda mathalay yani u noqotay way arag waa experience waay ciyaaruhu maaha inaan badino maaha inaan ciyaaraha anaga aan koob soo qaadano maaha inaan anaga aan gaarno waa rabnaa kulli laakiin haddana waxaa muhiim ah inaad diyaarisid ciyaartoyda adiga aad rabto in ciyaaraha dambe 2 sano 3 sano 4 sano dambe aad inaad sii isticmaasho hadda inaad sii diyaariso waa marka ayaha dambe ay markaas meel ay ku istaagaan yani ay ku qabtaan marka dhinaca farsamada yes waa jirtaa si waxyaaba ay rabaan tababarayaasha ma soconayso waayo wax adig aad haysid waa ciyaartooy u baahan tarbiyeen iyo waay aragnimo iyo afgarasho teamwork in la dhisaa way adag tahay waa gartay macallin cabdi aad baad u mahadsan tahay runtii macallimiintii xulka qaranka Soomaaliya Cumar Cabdiqaadir Baarajab iyo Axmed Daahir Axmed aqoontoodii kubadda koleyga xagga tababarnimada runtii intii ay hayeen xulka qaranka Soomaaliya waa geliyeen haddana ma aysan suurto gelin inay la badiyo oo halkaasi ay guulo ka soo hooyaan laakiin xagga farsamada markaad fiiriso maadaama ciyaartoydii Soomaaliyeed ee tagtay Kampala jir ahaan markaad fiiriso in aad looga waaweynaa ciyaartooy badan oo dheer inaysan jirin waxyaabaha runtii dadku ay u arkeen xogaa in qaladka u badnaa ay ahayd in ciyaartooydu inta badan ay iyagu tuuranayeen tuurashada 3 dhibcood iyagoo awoodi karay haddii kubadda la qaybiyo marka ciyaartooy furan inay intuu yimaado ay siyaan u dhaliyo ama 2 dhibcood ka tuuro ama 3 dhibcood ka tuuro marka adigu Cumar Cabdiqaadir Baarajab iyo Axmed Daahir Axmed labadaba macallin waad u ahayd marka ciyaartooy jir ahaan iyo farsamo ahaan inta la eeg markaad haysato oo aad tartankaas ka qayb galayso sida dagaal gelinayda horta hore kugu sheegay Muxudiino labadan tababare Cumar Cabdiqaadir Axmed Baarajab iyo Axmed Daahir Axmed laba ciyaartooy waxay ahaayeen oo Soomaaliya runtii wax badan qaranka soo ciyaaray isla markaasna nimankan waxay ahaayeen tababarayaal ayagoo ciyaartooy ah oo ciyaaraya ay hadda waxay ahaayeen tababarayaal Axmed Daahir wuxuu ahaa tababaraha naadiga horseed gaar ahaan weliba markaan aniga kasoo tegay Soomaaliya 89kii tababaraha gabdhaha kubadda koleyga naadiga horseed u ahaa Cumar Cabdiqaadir Maxamed Baarajab wuxuu ahaa ciyaartooyda gabdhaha naadiga isboortiga ee wasaaradda hawlaha guud jeeyay ayuu ahaa
isagoo ciyaartooy ii ah ay haddana wuxuu ahaa tababare oo isla gabdhaha u ahaa dhowr championshipna way qaadeen labadaas ciyaartooy dhowr championshipna way qaadeen oo marka qofka biniaadamka waxaa lagu qiimeeyaa aqoontiisa iyo championshipka yani waxyaabaha ringiska u wato farantiyada u wato ayaa lagu qiimeeyaa tababaraha waxaa laga yaaba marka tababare oo aad moodo inuu fiican yahay laakiin kooxdiisa aanay qaadin championship iyo nin tababare ah oo kooxdiisu mar kasta ay taagan tahay championship ama finalka marka labadan tababare waxay ahaayeen laba ciyaartooy waaweyn isla markaas kooxoodana ay ahaayeen labada gabdhaha sanooyinka ugu dambeeyey finalka isugu wada imaan jiray waagii berisamaadka wadanka u ahaa marka I don't think so inay waay aragnimo iyo aqoon ahaanba iyo yani farsamo ahaan inay liitaan laakiin waxaa waaye waktiga ayaan u saamaxaynin inay isku helaan ciyaartooy inay labadooda naftirkooda ay iswada helaan oo jadwalka ay wada dejiyaan oo ciyaartooyda subax iyo galab habeen ay ka shaqeeyaan because ani markaan ciyaaraya masar waa inaan masar aan fiiriyaa cajalooyinka laga soo duubay masar iyo ciyaartooyda inaan fiiri waayo heerka ay ka taagan yihiin farsamo ahaan koox ahaan wadajirkooda team worku inaan fiiri waayo dhinaca farsamada iyo xajmiga inaan fiiri waayo because tababaraha waxaa laga yaaba mar inuu xoog isticmaalo mar waxaa laga yaaba inuu farsamo isticmaalo mar waxaa laga yaaba xeelado kale oo ah yani time limit inuu isticmaalo marka si hadda u sheegtay marka anaga ciyaartooyda intuu within 4 ama 5 seconds kubad loo dhiibay oo isla marka uu 3 point ama 2 point iska tuuro waa calaamad waay oo kuu sheegayso marka ma eedi karaayo tababaraha sababto ah imsa yani waktiga ay isu heleen oo diyaar garow ahaan imsu ahaa ciyaaryahanka ciyaartooygii hore aan ku talagalay mise ciyaartooy cusub oo hadda imaado waayo iyo nin 4 months 5 months xareysnaa bilowna xareysnaa oo ciyaaro yani exhibition games oo ciyaaro tijaabooyin fara badan ah wadamo kale soo subiyey oo soo diyaar garoobay oo dhaqaale iyo meesha u seexday iyo wuxuu cunay iyo adduunya haysta oo takhaatiirtiisa wata oo diyaar ah iyo yani qof oo duruufo fara badan ay haystaan yani oo kasoo qayb gale waxay noqonaysaa wakti dheer waxay qaadanaysaa wakti dheer muxudiino in la diyaariyo ciyaartooyda soomaaliyeed in ciyaartooyda soomaaliyeed dibadda iyo kuwa gudaha ku jira oo dhalinyarada soomaaliyeed ee wanaagsan ee waddanka gudihiisa joogta si loo helo ciyaarihii gobolada si loo helo ciyaarihii degmooyinka si loo helo ciyaarihii dugsiyada in waddanka horta bal gudihiisa in waxaan ay ka soo bilaabmaan gaar ahaan laga soo dhiso ayay horta kow noqonaysaa waayo ciyaartooyda dibadda joogta inta waqti oo fursad lasu helaa way adag tahay in lasu wada keenaa way adag tahay because waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay waqti waxayna u baahan tahay qofka inuu niyad ahaan inuu diyaar u yahay inuu ku qayb qaato ciyaarahan isaga oo aan waxba aanan ku xiraynin shuruud qaar ba waxay ku leeyihin lacag bay siinaysaa qaar ba waxay ku leeyihin sababta aan u baxaan ma garanaya qaar ba wadaniyadii xataa aan ma garanaynin xataa in wadan iyo qaran xataa inuu jiro xataa aanan garanayninba yani iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qolooyinka isboortiga iyagu ama macalimiinta ahaa ama ciyaartooy cuslaata ahaa ama dadkii shacbiga isboortiga jecel ahaa waxay u baahan yihin xataa ayaga naftirkooda inay gartaan sidii loo taakulan lahaa tababarayaashan ama heer qaranima sidii loo taakulan lahaa axmed dahar ma samayn karo cumar cabdiqaadir baaji ma samayn karo gudoomiye cabdullaahi maxamuud cadaan ma samayn karo xogeyaha xiriir kubadda koleed ma samayn karo gudoomiye ku-xigeenada ma samayn karaan waa shakhsiyaad oo keli ah laakiin shacbiyan iyo dowliyan ayay noqonaysaa waa jecelnaha guusha muxudiin guusha soomaalida aad u jeceshahay laakiin waa very important sidii lagu kasban lahaa iyo nidaamka in la helo waa tahay cabdi aad baad u mahadsan tahay runtii sida aad ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda isboortiga aad ugu balbalaarisay farsamo ahaan iyo macalimiinta xulka qaranka soomaaliya axmed daahir iyo cumar cabdiqaadir baarajab siday u dagaalgeliyeen balse natiijadii ay noqotay in 4 cayaar oo ay ka qayb galeen ba laga badiyey cabdi dhinaca farsamada haddii aan ku weydiiyo kooxdaadii jenyo iyo xulka qaranka soomaaliya haddaan kala qaadno kooxdii jenyo inta badan idinku cayaarihiinu ma waxaad ahaydeen weerar difaaciinu ma wuxuu kasoo bilaaban jiray man to man baad ku dheeli jirteen mise zone baad u badneedeen mise hadba kooxdaad ku xiran tihiin ayay ahayd habka u dagaalgalaysaan muxudiin horta waa su-aal very important ana xataa santaan waa isla yaaba barnaamijka laakiin aniga waxaan ku ficnaa markaan xulka qaranka u ciyaariyay language ahaan af ingiriiska anigu waxaan ahaa ardaydii oo minad mishinka maraykanka marka macalimiinta maraykanka noo imaata
not only tababar yani ciyaartoy aan inay tababaraan laakiin waa la fariisan jiray wax weydiin ogaal ahaan yani khibradda iyo aragtida aqoonta uu leeyahay qofkaasi si gaar ah ay waxaan ahaa nin oo isaga la xiriira kaali ahaan oo isaga wax la shaqeeya markii aan naadiga waxaan xusuustaa 1980gii markii aan naadiga 79 aan qabtay hawlaha gudijeeyay oo Allah Xuseen Xuseen Cabdi iyar wiir Cabdi waxaan rabaa inaan naadigan inaad tababar noo noqotid okay markaan firin naadiga ciyaartoy ma haysan ciyaartoyda aniga aan haysan ahaan dhalinyaro yar oo junior ah oo ilaa ay 3-4 shar oo kale ay rooyihiin wali markaas ugu ay yihiin hase yeeshee marka waxaan bilaabay inaan ciyaartoy raadiyo ciyaartoy aan raadinay waxay noqotay marka Maxamed Faarax Aadan Qab oo kale Ameerika soo helo Yusuf Dolo in Ameerika soo helo nila Cabdiqaadir Khaliif Xasbiin in Ameerika soo helo dhalinyaro yani Cabdullaahi Cilmi Ereg oo kale dhalinyaro yar ahaa xaaji oo 15 May ahaa marka Maxamuud Jaamac Ali MJ iyo Baarajab Maxamed Geedi Santuur markaas ii joogay adiga dhalinyaro yar ah oo markaas oo waxay ahayd caaboon oo ah markaas soo baxay waxaan ku sheegaa marka 1980gii wax hor yaala naadiga xool oo ciyaartoydiisa heer qaran ah waxa hor yaala naadiga horseed oo ciyaartoydiisa heer qaran ah Soomaalita madbacada qaranka dawladda hoose municipio macnaha waxa arkaysaa naadiyada oo waaweyn oo dhisnaa oo markaas ciyaartoyda qaran ah dhow petrolka oo Bashir Fox iyo Axmed Muuse qarnaas ay ku jireen Saciid Farad Ducaale iyo Allah Xasan Shukriyo kala jaban waxay ahaayeen yani ciyaartoy waaweyn oo national team ahaayeen anna waxaan wataa dhalinyarada yarka ah ugu ka wato marka waxaan ku sheegaa tababarka inuu wax weyn wax ka bedelaan ku sheegaa marka waxaa noo fursad aan weynaag aan u helnay in aan naadiga tababar joogto ah aan sameeyno naadiga sportiga hawlaha guud wuxuu lahaa clubkiisa oo ka soo horjeeday garoonka weyn ee 11 October oo ka soo horjeeday oo hawlaha guud jeeyo isla markaas waxaan ahayn ciyaartoy koox socota 50 milyan ku ciyaar jirin dugsiga sare balaad ku ciyaar jirin galabtiin waxaan ku jirnay hawlaha guud ma aan istaagin ba ciyaartoydan isu keenay iyo tababarkoodii waxa suurto kale ii gashay inaan Cabdalla Ali Umar Cabdalla Dheer inaan ka soo helay naadiga macnaha badda asoo kubad ciyaar oo kale liida ka soo helay asoo ciyaartoy kubad caaga boortiir soo helay waxaan kaloo soo helay Cabdi Xalwo oo aan tagay Baydhabo Cabdi Maxamuud Guuleed ka soo helay iyo dhowr kale ciyaartoy ahaayeen oo markii naadiga petrolka iyo madbacada kala galay waxay kala galeen badda iyo petrolka waxaa moodaa marka iyo naadiga gobolkaasi Shabeellaha hoose marka tababar u noqday ayadana sidoo kale waxaan soo helay Dalay Cabdullaahi Cali Goore iyo Cabdiqaadir Madaxi naadiga waxaa moodaa inuu tartiib inuu soo dhismay laakiin waxaa ajaa'ib leh isla 1980giiba inaan final imaanay 79 gacanta ku qabtay 80gii naadiga hawlaha guud jeeyay wuxuu imaaday finalki aniga waxaan soo baxay naadiga badda soo baxnay ciyaartii finalka umadna waxay tahay horseed war xool aawe war madbacada qaranka aawe badda oo municipio naga badis markaas soo noqon badda finalki markaas where are the teams markaas waxay noqotay in badda nooga badis 2 dhibcood 2 points finalki wali Maxamed Geedi Santuur gacanta ka jabay macnaha waxaan ku sheegay marka waxa waaye dhismaha kooxda waxay noogu hirgashay wax kale ma ahayn waxay tababarka iyo isla markaasna waxaan ku jirnay jirdhiska naadiga aniga hawlaha guud waxaan aad ugu dadaali jiray waxa waa dhinaca ah yani jirdhiska conditionskooda flexibilitygooda agilitygooda iyo koox ahaan marka kooxii waaweyna waxaan kaga badanay fudeed oo ah yani joogto ah dhinaca farsamada marka taasi ahayd wixii ka dambeeyay 1980gina yani naadiga hawlaha guud wuxuu qaaday 4 horyaal iyo hal jira Daawud oo aan markaas aniga macallin ku ahaa oo naadi ahaan aan qaadnay hawlaha guud inta aniga aan ciyaaraynin wixii 77kii xaq ka jirna anaga ciyaaraynin oo anaga yani ilaa 5 championship anaga qaaday marka isku dar waa 9 horyaal oo kale oo championship ah naadiga hawlaha guud oo qaaday ahayd iyo 3 jira Daawud waa gartay macallin Cabdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeena qaybaha ugu dambeeya hadaan ka dhigno mahad celin ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya waalidiintoodii idin fasaxay in aad caruurtooda aad la safartaan oo tartan caalami ay ka qayb galaan maxaad uga faa'iideysanaysaa fursadan waalidiintii ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya fursadan u heshay warbaahinta qaranka Soomaaliya marka hore waxaan jeclahay inaan salaan iyo hambalyo aan u diro SNTV waayo
TV qaranka Soomaaliyeed runtii waa warbaahinta aan runtii aaminsanahay inay yani shacbiga Soomaaliyeed meel kasta adduunka ay joogaan yani waa hay'ad yani warbaahinteeda isgaarsiinta runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo Muxudiin Camuuse iyo dhamaan shaqaalaha kale iyagana ee ku nool magaalada Muqdisho kuwa jooga Ingiriiska iyo dacalada adduunka dhammaan kasta shaqaalaha ay joogaan waxaan leeyahay yani hambaliyo iyo aad iyo aad mahadsantihiin barnaamijka fursadda qaaliga oo nasiiseen waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo sidoo kale si hadda Muxudiin u sheegtay waalidiintii weli waxaan ka codsanayaa waalidiinta Soomaaliyeed in ayagu noqdaan hormuudka qarannimada Soomaaliyeed oo ah in ubadkooda yani amaankiisa anaga ay nasiyaan oo aan amaano qaadano damaano qaadano si at least qarankooda iyo shacbigooda iyo calankooda ay u matalaan waayo wax kasta wuxuu ku bilaabmaa guriga marka barbaarinta guriga ah iyo ubadkaagi iyo inuu matalo calankiisa Soomaaliyeed waa fursad qaali ah oo runtii aan ka codsanayo markas ummadda Soomaaliyeed ay joogto in ay aan ku bogaadin in amaan ahaan noo siiyaan ubadkooda aan leenahay ha matalaan qarannimadooda weli waxaan rabaa inaan ka codsado ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba aanu kala fahamno qarannimada iyo calankanaga iyo goboleysiga yani gobol waa jiri karaa degmo waa jiri kartaa laakiin isku wada darkooda guud ahaan yani waxaa muhiim ah adduunkan uu ku dagaalamo waxaa waaye waa qarannimada iyo sharafta iyo calankaaga aad meel uga soo jeesato inaan fahamno ayaa muhiim ah midda labaadna waxaan jeclahay in gobolada dalka inaan siino fursad oo ah horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed waayo gobolada iyo degmooyinka waa meelaha kaliya oo aaminsanahay dhalinyarada ku nool Soomaaliya in yani duruufaha qalafsan ee marayaan waa ummad si qaldan dhalinyaro ah looga faa'iideysan karo oo weelkooda yani wax qaldan lagu shuban karo oo yani loo isticmaali karo yani dagaalo iyo hub qaadasho iyo qof walaalka ah ama dadkaaga dil in loo isticmaali karo marka waxaan leenahay dawliyana in dawladda Soomaaliyeed inay xoog ay saarto sidii wax loo qaban lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarashada caafimaadka isboortiga yani arrimaha bulshada waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo ah meel kasta oo ah yani dawlad kastaba oo adduunka ay ku dagaalanto sidii dhalinyaradeedu ay waxtar iyo waxgal u noqon lahayn berito waayo haddii dhalinyarada ay kaa baaba'do dadkiina waayeel ay kaa noqdaan waxaan u malaynaa qarankaaga inuu ku jiro yani halis oo aadan ogeyn marka allah na dareensiiyo taasi wasaaradda isboortiga Soomaaliyeed iyo yani guddiga olombiga Soomaaliyeedba waxaana ku codsanay ayagan sidoo kale in ay wada hadal iyo wada xajood iyo wada fadhi inay sameystaan isla markaasna ay ka wada hadlaan sidii loo horumarin lahaa loo mideyn lahaa isboortiga Soomaaliyeed waayo hadda markaan Muxudiin aan la hadlayay kacaanka Soomaaliyeed kacaankii hore Soomaaliyeed wuxuu ku guuleystay in guddiga olombigada iyo wasaaradda isboortiga inay hal ahaayeen oo hal meel laga maamulayay orientationadii degmooyinka iyo scholasticadii iyo goboladiiba iyo ciyaarihii gobolada hal meel laga abaabuli jiray dhaqaale loo abaabulay arrin si lagu sameyn doono Allahu yaclam laakiin dhaqaale ahaan iyo dhalinyaro ahaanba iyo qaran ahaanba inay ahaayeen wax midaysan oo taakursi meel soo alahayd waxaan runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaa marka xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga waxaan aaminsanahay xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga inuu yahay institution kaliya ilaa ay hadda marka lagu daro kubadda cagta inay yihiin dadka fagaaraha Soomaaliya calankanaga geeya ciyaartooyda gabdhaha iyo wilishaba xooga saara oo meel kasta laga badi laakiin waxaa muhiim ah in adiga aad noqoto diyaar garow urur dhaqaale iyo wax alla wixii la qabanay marka xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga waxaan ugu hambalyeynaa tallaabada geesinimo ay qaadeen in ay ka qayb galaan ciyaarahaasi sida aad xusuustaan Brazil buu aragtay Brazil ciyaaraha adduunka ay qabatay Brazil 13 bilyan ay ku kharash gareysay dhismihii garoomada ciyaaraha adduunka wax kasta Brazil xagee ka baxday Jarmalkii waxa qaatay iyo Argentina ku soo bixin marka anaga waa tagnay Copas soo qaadanaysa meeshan ma aha Uganda waa diyaar garowday Masar waa diyaar garowday Rwanda waa diyaar garowday Burundi waa diyaar garowday Soomaaliya waa diyaar garowday oo ma ana hakan laakiin waa in haddana fahamnaa mar labaad oo ah very important ah ma aha oo kaliya waa baxay Copas soo qaaday ma aha waxa waa ka qayb gale يعني ولي وحن جعله إن وأرنمة خبرة إن نقطة سي أن بريتو ملفع أكو قارنو دمان دلين يردي كي قبل كشنا وهم بلينا تو برياشي وهم بلينا إيو أنت سبورتك سوماليات هور أمرنتي سجعل أو ربط إني كونتربيوشن كجسته
oo midnimo ahaanna rabta inay midnimada qaranimada Soomaaliya isugu wada imaadaan rabtaan waa u hambalyeena waxaan leenahay waa idin baahannahay leedinkama maarmo waxaanu jecelnahay inaan wada shaqayn iyo gacmo furanba idin soo dhaweyno waa tahay cabdi aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeena gabagabadiisa waxaan rabnaa inaan adigoo ku hadlaya xiriirka Soomaaliyeed kubadda koleyga iyo magaca kubadda koleyga Soomaaliya waxaa xiriirka Soomaaliyeed kubadda koleyga sanadkan ciyaarihii xulka qaranka Soomaaliya oo uu hogaaminayo gudoomiyaha Cadaani iyo ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed ee tagay dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala waxaa gacmo furan ku soo dhaweeyay oo ilaa intii ay joogeen runtii halkaasi soo dhaweyn diiran ugu sameeyay محمد جيدي سنتور oo kamid ahaa ciyaartooydii naadiga Genyo kana mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi waxa kale oo runtii qayb weyn ka qaatay Mandela Group oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo halkaasi ku haysata shirkadaha la kala yiraahdo City Oil iyo City Tire iyo gas stationada Haas iyo runtii dhalinyaro kale oo ganacsada ah iyo waxa kale oo jiray Cabdi oo hadaan ku sheego garoonkii ay ka dhacayeen tartankaasi ciyaaraha Zone 5 ka la yiraahdo MTN mar walba oo xulka qaranka Soomaaliya ay ciyaarayaan waxa soo buux dhaafinayay daawadayaal Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal isku soo xardhay calanka Soomaaliya ma sha Allah oo xataa ciyaarta marka laga badiyo xataa runtiisa waxankooda iyo sacabkooda uusan kala joogsanaynin fursadan maxaa ugu faa'iideysanaysaa waxaan jeclahay hambalyo waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waa ku ogahay qeyrnimada waa ku ogahay yani inay dadkooda jecel yihiin waa ogahay inay guul jecel yihiin waxaan ogahay waliba waxaan rabaa inaan u hambaliyo si gaar ahaaneed waalidiinta Soomaaliyeed marlabaad inaan ku soo celiyo aan iraahdo yani maxamed geeso tuur wuxuu ahaa ciyaartooyga hawlaha guud Genyo waa rigi aan soo barbaariyay oo ma sha Allah taala una isla naadigaasi in muddo ah yani heerka kuwa soo maray yani talaabadaas uu qaaday oo ahaa in wadanka Uganda as a manager oo ah maamulkaas oo dhan oo yani wiil Soomaaliyeed inuu noqdo qofkii barnaamijkaas weeyay runtii waxa leeyahay maxamed geeso tuur hambalyo waana ku ogaay wiil aan ku ogaay yani karti يعني دلقات أوديتينما رنتي إلهي يعني كم نسأ إيو دمان أنتي دلني شعبك الصوماليات أو إيست أفريقيا سمعتوا إيست أفريقيا صوماليا الشعبك هذا وفر بديه وديجان أهان هذا ودقيين مركز عيارتوي اللي كبد عكته عيارها فضود كبد كوليجا مركز إتجان قبل يولبا يعني وودن كودي إيست أفريقيا وودن كودي اللبعض أنا أمسين هاي أو السيدة يعني وحيبهين لكن وحيبهين يعني وحقول وكنا وحبهين وكفر حان يعني كشر تجان يعني قرنمة الصومالية أيان رنتي وحليه هاي حرير الصومالية كبد عيارها معمولة وحنكون عصنينا إن أدير جروبان مركز تجاين إيست أفريقيا إن ودموا يعني لبعض تجاين أو شعب بيقول الصومال يكونوا لي هاي مركز إن أدير جروبان مر لبعض يكون عيار سيد الصومالي يقول أكل عياره إن أدير جروبان كفر عسي ومدود waxaan kala runtii aad iyo aad mucdir rabo inaan hadal eri ku daro ah dhowr ciyaartoy waxa jirta oo Soomaaliyeed oo sharci waxa jira oo diidaya in ciyaartooyda oo Soomaaliyeed ku dhalatay dibadda oo maanta aan isleeyahay 20 jir 23 jir oo kala waaye sharciga jira oo FIBA oo diidaya inay u ciyaaraan wadankooda waayo sharciga wuxuu leeyahay haddii ciyaaryahanka 16 jir hadduu gaaro oo aanu wadankiisi aanu tagin oo aanu ku soo ciyaarin ama ciyaaro aan ay qayb gelin Soomaaliya junior ahaan uu dibaddana uu joogo looma ogola hadduu gaaro 17 ama 17 ama 18 hadduu gaaro looma ogola inuu qarankiisu ciyaaro marka waa sharci runtii aad oo xanibaya oo dhowr ciyaartooy oo fara badan oo Soomaaliyeed oo wadanka dibadahan ku nool oo diyaar u ah way had ciyaartooyda aniga aan geynay Uganda waa ciyaartooyda ku dhalatay Soomaaliya asarkooda hore marka waa ogahay waxa laga yaabaa hadda wixii ka dambeeyay 2-3 sano kadib inay si weyn soo jiri inay noqdaan laakiin aan lagu ogolayn ciyaartooyda yararka ah ee hadda yani dugsiyada sare iyo jaamacadaha wax ka ciyaara sida aniga wiilkayga oo kale Haroon Cabdidheere wuxuu jaamacadda New Brunswick ay ku ciyaara insha Allah taala jimcaha soo socda wuxuu imaan doonaa Toronto wuxuu ku jiraa jaamacadda wuxuu ciyaar doonaa York University ay ka ciyaar doonaa insha Allah ciyaartooyda aan loo ogolayn oo kamid yahay national team inuu ciyaaraan وانا يعني لو تنجر واسليها يعني بوينت قالت هذا اضافي عوان مرك اي هوب شرعي قاس سعيد فرد علي يقدمي عداني با وكجران سي او فيبا دعوadaas barnaamijkaas loo hirgelin lahaa insha Allah taala laakiin oo wax looga bedeli lahaa aayada soo socota marka waxaan leenahay aad ba maasantiin shacbiga Soomaaliyeed meelkaas ay ku nool yihiin gaar ahaan qolka ku nool East Africa يعني قاعدتي وين كجسين شعبيا iyo shaqaale ahaan iyo urur ahaan iyo management maamul ahaanba
cabdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha nagala soo qayb gasho maanta daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan lahow intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha oo uu maantay marti noogu ahaa cabdi maxamed ciya cabdi dheere oo ka mid ah xiddigihii xulka qaranka Soomaaliya iyo naadigii Genio cabdi waxa uu runtii qayb weyn ka qaatay dhismaha xulka qaranka Soomaaliya kubadda kolayga xagga farsamada cabdi waxa uu runtii si weyn uga hadlay xulka qaranka Soomaaliya waxa la gudboon mustaqbalkiisa sida ay u ciyaaraan iyo in uu gool walba diyaar u yahay in xulka qaranka Soomaaliya uu taageero iyo talo wuxuu hayaba inuu siiyo anigu am xidin jaamacada barnaamijka la mid ah aynu ku kulmi doono nabadgelyo